mar walbo naftu waxay jeceshahay waxa quruxsan maxaa yeelay indhaha ay u roon tahay waana isku dagaysaa laakiin waxa ka qurux badan oo ka qiimo iyo qaaya badan qofku markuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku xiran yahay oo aad khayr iyo dhikri aad samayso sida naftu ay ugu raaxaysanaysaa meelaha qurxoon ay nolosha inteeda kale waxay ku raaxaysanaysaa dhikriga Allah subhanahu wa ta'ala waxayna ka helaysaa mar walba xasilooni iyo deganaasho naftu ma jeclo waxyaalaha xun ama waxyaalaha foosha xun walidalik qalbigana marka ay dunuubta asiibto sida nafta ay u dhibsanayso waxyaalaha dhibta badan oo kale ayuu qalbigana wuxuu u dhibsanayaa macaasida kharrada ay ku samaysay noloshaaduna halkaas ay mar walba waxay noqonaysaa nolol aan isku dheelitirnayn isla markaana nolol aad u kulul saad u raaxaysato noloshana ku macaanaato badsa dhikriga Ilaahay subhanahu wa ta'ala aad iyo aad ba mahadsantahay salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh